كويري بشو وصدن بلغنا وابوحة ويلكي مركاسو قاتي ألابتها دو إيغي صدن ما إيواشان إلا باتن بلغي وشيغي كالورا دي وابوحة ويرينا والغا شبتي حوغا ميلبو انتو لكتو أسو نقضو وحيري واد مهات سنتين لكن أمانة دي آبها إذين سو ديبي وحبات كدعيسين وحبات كقادتين markaasay afka kala qaadeen jiraad sideed ku ogaatay waxaan ku ogaaday buu yiri aabahay bishu waa 30 balliguna waa buuxa markuu isoo yiri 30 cad oo hilib ah iyo kaloorad subagoo buuxda ayaan ku soo dhiibay buu ka waday markaasay nimanka afka kala qaadeen waxay yiraahdeen ilaahay baan kugu dhaarinayna ceeb asturhana sheegin ganacsi baan hadda meesha wadanaay annaga lacag ku siinayna ceeb asturo ha u sheegin aabihi dadka kale ba ha u sheegin arinta isagina uu ka ballan qaado wuxuu yiri idin ma sheegayay mar dambe laakiin ay dhicin amaana lidii soo dhiibay inaad sidaa u dhicisaan wax ka qaadataan marka bal hada hadal nin si uu yiri nina si uu qaaday Soomaalida bariga hore dhaqan bay lahayd qoraal ma jirin telefoon ma jirin laakiin maxaa jiray suugaan waxa jiray maahmaayo waxa jiray gabayo waxa jiray sheekooyin iyo dhacdooyin wada sarbeeba oo laba qof ay af garanayaan dadka kale u dhaxeeyana aanay garanayn ayaa jiray oo waxyaabaha siraha iyo waxyaabaha la doonay inaan la ogaanin lisugu gudbiyo ayaa jirtay tiyo kale marka hodantinimadaas oo kale inaan ka faa'iideysano afka oo u baahan waxa kale oo meesha muhiim u raba in laga faa'iideysto amaanada qofka marka amaana loo dhiibo inuusan dhicin inuu khiyaamin inuusan marka uu wax ka qaadanin oo sideedii iyadoo ah uu u geeyo meeshii uu ku simana aad iyo aad baa loogu baahan inaynu dhaqanka maamaada iyo sheekada aan maanta kala baxno daawadayaal barnaamijkeennina halkaa ha inoo joogo